السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان هالكن كسلام يا دمان أمدا صوماليات جارهان صوماليدا أوجادينية كده يدبت بميل والباء جوكتان. وحان إذن الله هاي سلام قبل رمضان يجي قدومه بعد سلام وحان ربا وحير أو وربحنا أو كوبان بل إن إذن كسيو حالة الديجان كوكسوجين هاي وحان هذا كسوجان هاي مجال تيجا وحان شغلنا أدوجو مدة أسبوعة tan iyo intii tigtiga aan joognay waxaan noo qabsoomay howlo aad iyo aad run ahaantii u qiimo badan. waxaan la yeelanay kulamo kala gedisan dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada tigtiga. waxaan waqti iyo fursad u helay dadkii muddada kala maqnaa ee gumaysiga iyo dhibaatadii baahsaneed ee geyiga hooyo ka jirtay ilaa haddana ka sii jirta dadkeena lagu kala hayay ayaa waxaa nasiib aan u yeelanay in fursad aan isu helo dad run ahaantii aad u qiimo badnaa. tusaale ahaan waxgaradkii iyo salaadiintii bulshada, dhalinyartii iyo da'yartii, aqoon-yahankii, culamaa udiinkii waxaanu wadaagnay tala wadaag. waxaanu isla qiimeynaynay marxaladda hadda uu ku jiro deegaankeenu iyo waxa ay ku jirto danta ummadeenu. aad bay bulshadeenu run ahaantii ay u fiican yihiin si guud marka loo fiiriyo marxaladihii ay soo mareen, waxa dadkeenu ay soo mareen, gumaysigu uu soo baday iyo waxa hadda ay ku jiraan moraalkoodu sida uu yahay sidii aan filaynay run ahaantii ma aha. farqi weyn baa u dhaxeeya ciqaabtii aad ogeyd iyo gumaadkii aad ogeyd iyo bahdilkii aad ogeyd ee deegaanka ka dhacay. ilaahay waa ka samata bixiyay dadka bal ee haddana quluubtooda iyo wadaniyadooda iyo shucuurtoodu aad bay u adag tahay run ahaantii. waxayna arrintaasina siisay moraal gelin iyo dhiiranaan iyo hididiilo hor leh. shidaal bay noo noqotay aanu kusii shaqayno. waxaanu halkan u joognaa sidii muwaafaqada iyo midnimada dalkaayaga iyo dadkaanaga aanu oga shaqayn lahayn, annagoo mid ah aanu dantaanada u wajihi lahayn, annagoo mid ah aanu codkaanaga u mideyn lahayn, annagoo mid ah cadowgaanagu cidda uu yahayba aanu u abbaari lahayn, annagoo mid ah khayrkaana aanu wax oola qaybsan lahayn. waa la ogyahay dadkaanagu waxa uu ooman yahay waa gobonnimo, waa sharaf, waa karaamo, waa cisi inuu soo ceshto. waan iswaafaqnay dhammaan culamaa udiinkii, aqoon-yahankii iyo waxgaradkii talada ummaddu ay ka go'day. waanu wada joognaa gobolada kale weli ma aanan u dhaadhicin oo jigjigaan xoogaa howlaheeda ku mashquulay. hase ahaatee waanu u soconnaa. waxaanu idiin sheegaynaa inaanu degmo walbiyo gobol walba insha allahu tacaala aanu gaari doono. hal mid baan rabaa xaaladda ammaanka deegaanka inaan ka dhaho. dhibaatooyin aada u badan baa dhacay oo u dambeysay carqaladii u dambeysay ee cabdilay meesha uu kaga baxayay oo run ahaantii saameyn ku yeelatay bulshada. waxaa kaloon rabaa inaan idiin sheego iyaga oo ku gabanaya amniga ay sugahayaan culays badan ayaa ka jira deegaanka oo ciidanka militarigii uu ku hayaa. khad ma aan haysanin oo khadkii u horreeyay maanta ayuu noo soo noqday. waxaan arkaynay bogaadin badan iyo hambalyo badan oo loo jeedinayo mustafa cumar hambaliyadiisa iyo bogaadintiisa. aniga shakhsiyan anoonta urur ku hadlaynin wuxuu heli doonaa ama aan siin doonaa, dhalinyarada deegaankuna ay garab buuxa iyo taageero ay siin doonaan awoodan military iyo cududan sii socota ee soo socota ee derbi walba taagan marka geyigeena ay ka baxaan. deegaankeenuna uu la mid noqdo deegaanada kale. cadaadiska iyo caburiska iyo cagajugleynta iyo cabsida iyo tiknikada lagu socdo markii laga yareeyo, annagu ammaanka annagaa ka mas-uula, annagaa suganayna, annagaa damaanad qaadayna cid walba iyo ammaankeeda iyo nidaamkeeda inagoo soomaaliya u tashan. laakiin militariga Ethiopia ha baxo, deegaanka annaga ha ka baxo, annagaa ismaamuli, annagaa cadaalad ku shaqaysan, annagaa ismaxkamadaysan, annagaa waxaan doona ku wada dhaqmayna, annagoo Soomaaliya annagaa ka tashan. qoomiyadaha kale ha oola sinaado militarigan iyo cududan iyo culayskan uu sii socotay basaska saaran ee geyiga hooyo lagu waxeenayo ee na sii dhaafay. waxaanu leenahay mustafa cumar markii arrintaa aad wax ka qabato ayaanu run ahaantii taageere iyo garab ku siinaynaa. waxaa kaloon kaaga bogaadinaynaa labada tallaabo ee aada u qiimo badan aad qaaday ee ah inaad soo celiso calankii rabitaanka shacbiga deegaankeena ku yimid iyo magacii rabitaanka shacbiga deegaankeena ku yimid. tallaabooyinka kale eed qaadane wixii wanaaga eed dhigato wanaageeda ayaad heli doontaa idam allah. haddii wadooyinkii raggii hore ay qaadeen hadee meeshii ay mareen unbaad mariyo waad arkaysa cabdi duhur cad in lala tegay military walba oo jooga iyo cudud walba oo joogta ninna cududi ma difaacdo. waxa shaqaynaya waxa weeye waa rabitaanka shacbigeena.
mustafa tallaabada uu qaado iyo waxa uu soo kordhiyay ayaanu ku qiimeyn doonaa kuna taageeri doonaa waa aragtideeda shakhsiyaaneed ma ku hadlayo tuurur markaan mustafa fariintan aan u dirahayo waxaan u sheegayaa bulshadeyda midnima ina kaafida iyada un baynu wax ku noqon inagu aynu fakero maskaxdeena iyo caqligeena aynu ku kaashano wax walba oo wax soo saara iyo wax walba oo isku tashiya inagu aynu la imaano waxaan ugu baaqayaa dhammaan da'yarta u dhalatay deegaanka maanta waa maalinkii xooggeena iyo muruqeena iyo maskaxdeena iyo itaalkeena aynu dalkeena iyo dadkeena wax ugu qaban lahayn maanta waa maalinkii khayrkeen aynu wax la qaybsan lahayn aynu challenge garan lahayn xornima ina kaafida iyadaa karaamo leh sharaf baa korkeeda nama deeqashay kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu